waftigii ballaadhnaa ee uu horkacayay gudoomiyaha koowaad ee xisbiga kulmiye Muuse Biixi Cabdi oo ay safarkiisan ku weheliyaan gudoomiyaha labaad ee xisbiga kulmiye Maxamed Kaahin Axmed ayaa maanta galkii dambe si diiran oo maqaamkeedu sareeyo lagu soo dhaweeyay xarunta labaad ee gobolka Sanaag ee magaalada Ceelafweyn. ugu horreyn waxa madasha soo dhaweynta loo diyaariyay waftiga ka hadlay maayarka magaalada Ceelafweyn Baasha Xamdulla Warsame, gudoomiyaha ku-xigeenka xisbiga kulmiye ee degmada Ceelafweyn Siciid Cabdi Cabaase iyo gudoomiyada garabka haweenka ee xisbiga kulmiye Khadiija Axmed Ducaale. sidoo kale waxa iyaguna halkaas ka hadlay xildhibaano ka tirsan golaha wakiilada jamhuuriyadda Soomaaliland qaar ka mid ah waftigii la socday gudoomiyaha xisbiga kulmiye waxaana hadalkoodii ka mid gudoomiyaha xisbiga kulmiye Muuse Biixi Cabdi waxaan ku leeyahay aniga waftigaan soo dhawaada degmada Ceelafweyn oo ku soo dhaweynaysa gacmo furan iyo neef furan. madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamuud Maxamed madaxweyne ku-xigeenka saddexda gole qaran iyo dhammaan shacabka degmada Ceelafweyn. waxaan ugu leeyahay ku soo dhawaada degmada Ceelafweyn mar labaad iyo mar saddexaad. gudoomiyaha xisbiga Muuse Biixi Axmed iyo gudoomiyaha ku-xigeenka Maxamed Kaahin waxaan leeyahay gudoomiye ku-xigeen waxaad timaadeen degmadii ugu Ceelafweyn, degmadii ugu horreysay waddanka Soomaaliland ee aad ugu gacanta ku horeyseen. waxaan leenahay gudoomiye ku soo dhawaada maantana shacabku gacmo furan niyad wanaagsan baan ku soo dhaweynayaa. ku soo dhawaadaan leenahay halka waxaan hambaliyo iyo soo dhaweyn ana soo koobi karay ku soo dhaweynayaa gudoomiyaha xisbiga kulmiye Mujaahid Muuse Biixi Cabdi iyo wafdiga uu hogaaminayo gudoomiyaha ku-xigeenka Maxamed Kaahin Axmed. xildhibaanada iyo wafdiga ballaaran uu hogaaminayo waxaan ku soo dhaweynayaa salaamta diinta islaamka. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waxaan leeyahay ku soo dhawaada degmadiinii aad ku ahaydeen codka iyo aqlabiyadda ee aad ku sulfanaydeen. gabagabadii waxaa iyaguna madashaasi soo dhaweynta ka hadlay gudoomiyaha koowaad ee xisbiga kulmiye iyo gudoomiyaha labaad ee xisbiga kulmiye iyagoo uga mahad celiyay dadweynaha reer Ceelafweyn soo dhaweynta qiimaha iyo qaayaha leh ee ay ku soo dhaweeyeen. waxaana hadalkoodii ka mid ah marka hore anigu raadaya magaca waftiga aan ku socono oo ka kooban gudoomiyaha koowaad odayaha guud ee xisbiga saddex xildhibaan oo garabkii haweenka madaxweynihii iyo dhalinyaro kale ku suganba waxaanu aad iyo aad ka mahadnaqaynaa guud ahaan gobolka Sanaag gaar ahaan Ceelafweyn soo dhaweynta ay ku dheehan tahay kalgacalka iyo shucuurta badan ee aan ugu soo dhaweyseen aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa. odayaasha xuqaanka dhalinyarada iyo waayeelka aad iyo aad waxaanu ugu mahadnaqaynaa sidii wanaagsaneyd ay noo soo dhaweyseen. aad iyo aad waxaanu ugu mahadnaqaynaa shirkeedii xafladan iyo maalmoodkan aan halkan isugu jiro. Axmed Mursal Askar TV-ga caalamiga Universal Ceelafweyn.